wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Kuwait ayaa cambaareysay qaraxii gaari ee shalay lagu weeraray hotel ku yaala magaalada Jowhar oo inta badan ay degnaayeen mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabelle. war qoraalaha oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa ay ku nuuxnuuxsatay mowqifka Kuwait ee ku aadan dhanka rabshadaha iyo weerarada argagixisada. waxay sidoo kale ku celisay baaqeeda beesha caalamka ee ku aadan in la xoojiyo dadaalada wax looga qabanayo dhibaatooyinka khatarta leh iyo weerarada ka imaanaya ururka Al-Shabaab. Kuwait oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxa ay tacsi u dirtay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan qoysaskii iyo dadkii ay waxyeelada qaraxaas ka soo gaartay, waxaana ay u rajeysay kuwii ku dhaawacmay in si degdeg ah ay u helaan bogsiimo. ugu yaraan 5 qof ayaa dhimatay, 7 kalena waa ay dhaawacmeen qaraxa kadib markii gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa uu ku qarxay afafka hore ee hotelka Nuurdoob oo ku yaala aagga madaxtooyada. wasiirka haweenka Hirshabelle Caasha Khaliif Xaaji, wasiirka caafimaadka Cabdi Macalin iyo gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Hirshabelle Canab Ciise ayaa ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkaas, waxaana mas'uuliyaddeeda sheegtay ururka Al-Shabaab.